muddo aan isleeyahay hal week waa ku dhowdahay ama waa dhan tahay waxaanu howlgallo uga jirnay magaalada beledweyne iyo magaalada boole barde inta ka dhaxaysa deegaamadii awal hore looga saaray nimanka cayayaanka ee dhiigga bini aadamka caadaystay ayay mar labaad waa wax aqasunaasa oo waxyaabaha la yaabka oo aan maanta arkay waxaa ka mid a dhulkii baaruhu ku yiileen iyo deegaamadii roobku galay dadkii shacabka ah inay daaqaan amay degaan xitaa uma oggola dhulkaasaanu howle ka wadnay beerxaano tirijeento burdaar nuur fanax ceel la hele iyo deegaamo kale waxaa maanta allah subxaana wa tacaala mahadwaa ka gaadhee suuragal noo noqotay inaan ka saarno magaalada nuur fanax ee istiraatiijiga ah ee aan hadda ku sugannahay ciidamada howlgelayana waxay ka kooban yihiin ciidamada xoogga dalka ee sida raha u booda iyo kuwa deegaankee sida caarada u socda caarada way garanayaan umana birdhigi karaan inay iska caabiyaan caado uma lahayn mana iska caabi karaan waa niman shaqadoodu tahay inay waxgaadaan inay masaakiinta yani xoolaha ka qaataan yani waxaa lagu leeyahay qofka bisha rabadaan marka uu soomo asaga ayaa xaq u leh fitrad cidda uu siinayo inuu doorto waxyaabaha ugu yaabka badneedoon maanta arkay waxay ahayd inay dadkii leeyihiin keena fitrada adinku ilaahay idankii hadday ku noqotona inta ay deegaan hiiraan ka mida ku jiraan ma dhigi doono gulufka iyo inaan ka saarno dhulka ma dhigi doono mana dhaafi doono ama ay soomaaliyaba ku jiraan aan idhaahdee intay soomaaliyaba ku jiraan ma ka nasa doono mana ka aamusi doono gacmahana kama laaban doono laakiin fakalti ahaan aniga fakaltiga aan ku magacaabanahay waa hiiraan waxaa aad ii quseeyaa waa hiiraan hiiraan hadda dhulka ay ku hareen waa webiga shabeelle dhanka galbeedka ka ah halkaasay ku hareen deegaamo badan oo dhulkaa ka bannaan oo aysan joogin oo dadka deegaanku kula dagaalameen wakhti hore welina ay dhulkii ka ilaaliyaanna waa jiraan oo isla galbeedka ah deegaamay ku jiraanna waa jiraan ilaahay idankiina ma fadhiiso doonno gacmahana isma saaro doonno annagoo aan deegaamada ka saarin gulufka aan hadda ku jirno inaan uga sifeyno hiiraan iyo soomaaliyaba ayaan u diyaarsannahay dadka soomaaliyeed haddii dhulkiina lagu soo duulay midabkaad doontaan yeesha ciidamada qalabka sida dee ilaalinta waddanka waajibaaba ka saaran oo waa kuwii u diyaarsanaayeen oo loo aasaasay ayagoo midba qayb leeyahay waa u diyaarsan yihiin laakiin dadka shacabkaa ee soomaaliyeed ee hubaysan iyo kuwa aan hubaysnaynba waxaa la rabaa inay qaybta ugu weyn ka qaataan ayaguna in ay la dagaalamaan cadowga sababtaa dhulkoodiyaa lagu soo duulayno waxaan la oggolayn oo keli ah in ayadoo la leeyahay loogu magac daraya cadow baan la dagaalamaynaa system warlord ah in loo isticmaalo qabaa'ilka ayaa qalada system warlord in loo isticmaalaa qalada laakiin cadowga inay la dagaalamaan oo kii qoda haystaa xabad ku rido
oo aan kii qori aan haysano soo sheego oo yiraahdo halkaas ku jira xagganay socdaan oo meel walba telefoon baa ka baxee leesu kaashado wax aad u wanaagsan waaye in guulo badan laga gaarana way dhacaysaa aniga hadda hadal badan inaan ilaahdo uma istaagin inaan u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo ciidamada xoogga dalka ee howlgalka maanta nugula jiray iyo ciidamada deegaanka intaba iyo kuwa nabad sugidda midabkay doonaan ha yeesheen fakalti kasta yihiinba ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa u mahad celinaynaa kuwa deegaanka oo runtii aan dhihi karo waa dad muwaadiniina u diyaarsan inay cadowga iska dulqaadaan walow ay ku jiraan qaar aad moodo sidii u fakarayaan si yaab leh inay tahay ay ku jiraan haddana bini aadamku inuu boqolkiiba boqol seef garoobo u israaco ma dhacdaba maba dhacdo sidaa darteed waxaan leenahay waa mahadsantihiin midabkaad doontaan yeesha dadka Soomaaliyeed Allah subhanahu wa ta'ala aan adoonku u nahano waxaan uga mahad celinaa inuu noo suuro geliyay in cadawga aan ka adkaano oo goob kasta oo ugu hornimaadaba u cararo taana Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale dadka Soomaaliyeed waxaan mar labaad carabkay ku adkaynaya war ha loo istaago dhagar qabayaasha in Soomaaliya laga saaro Soomaaliyey maxay ahayd haystii wadadii banaaneed laga weecan maayee Soomaali weynay wacad baa inoo yaal Soomahay war wacad baa inoo yaal wacadka inoo yaala muxuu yahay waa in shabaab laga waayo wadanka shabaab in dalka laga waayo wacadkaas inoo yaal Soomaaliya intaasaan kula dardaarmayaa anigana waxaa iga go'an haddii alla idmo inta shabaab dhul Soomaaliyeed ku jiro inta itaalkaygu la egyahay hiilaana inaan ka saarno Soomaalina inaan ka saarno qalbiyan iyo ficliyanba haddii Ilaahay idmo da wax kastana culays kasta ha jiro awood la'aan kasta ha jirto wax walba haystaa marsanaadeen laakiin wax la barbar dhigi kara shabaab oo loogu cudur daari karaa ma jiro